kula wadaago wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Iran iyo waliba arrimaha bariga dhexe. Afhayeenka ilaalada kacaanka Iran Ibrahim Dulfaqar ayaa sheegay xaaladda marinka Hormuz uusan noqon doonin sidii hore uu ahaan jiray. xaaladiisana wax badan ayaa iska bedeli doona. Wuxuuna intaasi ku daray oo uu xaqiijiyay in si dhammaystiran ay u maamulayaan marinka Hormuz iyadoo dhexda looga jiro dagaalada ka soconaya gobolka. Afhayeenka isagoo waramayay wakaalada wararka ee Mehr ayaa waxa uu sheegay inuu jiri doono nidaam cusub oo markaasi lagu dhaqi doono marinka Hormuz gaar ahaan maraakiibta halkaasi maraya. kaasi oo markaasi diyaarisay dawladda Iran ayuu yiri wuxuuna carabka uu ku adkeeyay in marinkaasi uu mar walba gacanta ku hayn doonaan madaxda Iran. laga soo xigtay aqalka cad ee Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu kulan la yeelanaa dhigiisa Shiinaha bisha May ee soo aadan midani oo ah booqashadii ugu horeysay uu ku tago China muddo 8 sano. booqashadan ayaa markii horeysay dib loo dhigay iyadoo markaasi ugu wacan tahay dagaalada ka soconaya Iran. waxaana suuragal ah in dib loo sii dhigi doono haddii Washington ay ku guuldareysato xaqiijinta hadafyadeeda dagaalka. wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee The Telegraph ayaa ku waramay in Ruushka maalintii uu ka faa'iido dagaalka ka socda Iran $360 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ka imaanaysa kororka ku yimi iibsiga shidaalka Ruushka, iyadoo la sheegay in bisha Abriil ay gaari karto faa'iidada uu Ruushka ka helayo shidaalka $24 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sabab la xiriira cunaqabateynta laga qaaday shidaalka Ruushka. warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in haddii xitaa dagaalku uu dhamaado dakhliga shidaalka uu gaaska ee Ruushka inuu gaari doono $218.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkiiba, taasoo ah 360% ka badan saadaashii ka hor dagaalka. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa waxa uu sheegay inay khaarijiyeen taliyaha ciidanka badda ee ilaalada kacaanka Iran Ali Rida mas'uul ka ahaa xiridda marinka Hormuz. khaarijintiisan ayaa waxa uu ku sheegay inay daliil u tahay iskaashiga kala dhaxeeya Washington iyo waliba inay si wadajir ah wada fulinayaan xaqiijinta hadafyadooda. dhanka kale warbaahinta reer galbeedka iyo tan gudaha Iran ayaa tabinaya in Ali Rida oo markaasi Israa'iil ay sheegayso inay dishay uu ahaa maskaxdii ka dambeysay istaraatiijiyadda ay Iran ku xirtay marinka Hormuz. sidoo kale uu lahaa qorshaha dhamaystirka in la aaso miinooyin la geliyo gunta hoose ee badda kuwaasi oo ka hor istaagaya maraakiibtu in ay aagaasi maraan xitaa haddii aysan cabsi jirin. Ali Rida waxaa lagu yaqiinay hadallo adag iyo waliba mowqifyo militari oo toos ah oo aan gabasho lahayn, gaar ahaan marka ay timaado doorka Iran ee Khaliijka iyo waliba marinka istaraatiijiga ee Hormuz, isagoo marar badan soo muuqday toddobaadkii u dambeeyay xilli ay kordhaysay xayiraadda aagan iyo hadallada ay isdhaafsanayeen Iran iyo xulafada huwanta ah. Iran ayaa boos weyn ka banaanaan doona haddii uu dhab noqdo warka dhimashada sarkaalkan, maadaama uu ka mid ahaa xubno si firfircoon uga harsanaa dufcooyinka jiilkii koowaad ee kacaanka Iran, waxaana ilaa iyo 2018 uu hormuud u ahaa saraakiisha ciidanka badda Iran, gaar ahaan cutubka ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. sida ay sheegtay wakaalada wararka Iran ee Tasnim in Iran ka jawaabtay xalay iyada oo markaasi u marsiinaysa dhexdhexaadiyaasha jawaab celinteedii rasmiga ahayd ee heshiiskii uu soo jeediyay Mareykanka. Iran hadda waxay sugaysaa jawaabta dhanka kale uga timaada ee soo jeedinta qodobada wadahadallada markaasi Trump uu soo bandhigay. Iran ayaa waxay dalbatay in la joojiyo duqeymaha iyo waliba khaarijinta mas'uuliyiinteeda. sidoo kale waxay dalbatay in magdhow laga siiyo dhibkii iyo waxyeeladii loo geystay intii uu dagaalka socday. sidoo kale jawaabta Iran ayaa waxaa ka mid ahaa damaanad qaad ah in aan mar dambe la soo weerari doonin. sidoo kale in dagaalka joojintiisa ay shuruud uga dhigtay in la wada joojiyo dhammaan dagaalada midka iyada lagu wado iyo kuwa lagu wado xulufadeeda oo markaasi ka dagaalamaya furimaha kala duwan ee gobolka. dalalka Khaliijka ayaa lumiyay 40% awoodoodii wax soo saarka shidaalka, gaar ahaan warshadaha sifeynaya shidaalka oo markaasi ku burburay weerarada Iran soo qaaday. waxayna ku qaadanaysaa inay dib u dhisaan muddo ka badan 3 sano, taasoo la sheegay inay ka dhigan tahay 11 milyan oo fuusto oo markaasi shidaal ah inay maalin kasta adduunka luminayso, sida uu wariyay TV-ga France 24 uu soo xiganayo warbixin uu soo saaray wasiirka dhaqaalaha iyo tamarta Faransiiska Ronald Lescure. ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar uu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu niyad jab iyo waliba garab istaag la'aan uu kala kulmay mowqifka NATO ee dagaalka Iran waxay qorsheynaysay ayuu yiri
in 4 isbuuc gudahooda ay ku yeelan rabtay hubka nuclear-ka haddii aynaan weerar lahayn ayuu yiri hubkaasi waxaysan lahayd wuxuuna intaasi ku daray in la laayay madaxdii Iiraan ee safka hore iyo safka labaadba ee nidaamka hoggaanka Iiraan. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Iiraan ay qorsheynaysay inay gacanta ku dhigto mandiqada bariga dhexe oo dhan annaga ayaana ka hor istaagnay ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa sidoo kale waxa uu ku sheegay in Iiraan doonayaan heshiis waana dad wada hadalka ku fiican ayuu yiri. Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay oo uu yiri aniga ma hubo rabitaankayga inaan Iiraan heshiis la galo.